بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن السيدو حاجمية waxaan ku guda jirnaa cashirkeeni saddexaad ee qaabka loo hagaajiyo maktabadaha. waxaan ka soo sheekeynay isbuucii la soo dhaafay nambarada loo adeegsan karo 3 ibir ilaa laga soo gaaro 100 wixii loo adeegsanayo ayaan ka soo sheekeynay. ibir 10, ibir 20, ibir 30, ibir 40, ibir 5, ibir 50, ibir 60, ibir 70, ibir 80, ibir 90. maanta insha Allah cashirkeena wuxuu ku saabsanaa doonaa qaabka loo raadiyo marka buugga adiga aad rabtid maktabadda inaad ka raadiso. qaabka loo raadiyo ayaan mithaal ahaan aan ka bixi doonaa, laakiin insha Allah waxaan ku hormari doonaa xigmadeena oo aan ka hormarsii jirnay mar walba maaragtay cashirkeena. xigmadeena maanta waxay leedahay suquudu linsaani laysa fashalan walaakina alfashala an yabqiya xayثu saqada. suquud linsaani bani aadanka dhicitaankiisa ama bani aadanka inuusan bariiraxdo laysa fashalan cayb ma ahan, walaakina alfashala waxaa cayb ah an yabqiya bani aadanka inuu baaqi ku ahaado xayثu meel saqada asiga uu ku dhacay. مثلا barnaamijka ku fashilantay ayan kaana barnaamijkaas wuxuu rabo ha ahaado, سواء من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن كل شيء إنه بني آدم مارتي الأمور الاجتماعية كترسن أيات كفشل أنت سومان فشلتان كاس أديك أد كفشل أنتي إنا ماشي أديك أد كفشل أنتي ولي إنا كسي باقي أهتت أيا عيب أحمرك فشلتان كاس أديك أد فشل أنتي وحال ربا إنا جولة فربضن هتكسو جارسيزو. maaragtay cashirkeena gudaha u galno waxaan dhahnay 3 ibir laga bilaabo ilaa 100 waxaan dhahnay waxaa la siiyaa alcumuumiyaat ama alacmaal alcaam. cashirkeena maanta inaan qaadano wuxuu ahaa 100 ilaa iyo 190 laga soo gaaro alfalsafatu wa culuum almuttasilata biha. 100 ilaa 190 200 laga soo gaaro halahan waxaa iska leh alfalsafa walculuum almuttasila biha. علم الفلسفة علمي فلسفة iyo wixii laga qoray ayaa waxaa laga raadinaa 100 ilaa iyo 190. midkeena hore cashirkeena hore haddii aan dib ugu laabano oo xagga tasniifinta ah, video yar ayaa jiray oo videoga ku dhex jiray oo maktabadda aan kasoo duubay anigoo buug raadinayo. buugina waan soo helay, wuxuu ahaa buug oo 300 ilaa 352 ahaa. 300 waa culuum la yiraahdo culuum ijtimaaciya, 300 oo culuum ijtimaaciya waay. marka maanta waxaan qaadanaynaa qaabka مثلا maktabada soo gashay. maktabad walba waxay leedahay database oo markaas ayada gaar u ah iyo qaabka buugaagteeda u kaysan yihiin. hadda jaamacadda aniga aan dhigto qaabkay u shaqeyso iyo kulli ayaan idinla wadaagi doonaa. tusaale ahaan maktabaddan waxaa la yihahdaa maktabat malik salmaan almarkaziya. maktabat malik salmaan almarkaziya markaad ku dhufatid maktabadda oo magaceeda aad ku qortid kadib waxaa kusii dhufanaysaa cimaadat shu'uun almaktabaat ayaad ku dhufanay. cimaad shu'uun almaktabaat markaa ku dhufatid waxay leedahay markay qeybo fara badan ay leedahay. مثلا qadamaat almustafiidiin, dadka oo maaragtay maktabadda ka faa'iideysto qawaacid almacluumaat maaragta alfahris alaali maata alkhidma almarjiciya alelektroniya, qaab oo maaragtay electronic ahaan inaa wax usoo dalbato maaragta. marka barnaamijka hadda ananka naga qusayo waxaa waaye alfahras alaali ayaad ku dhufanay. alfahris alaali ayaad ku dhufanaysaa. waxaa rabaa magta buwaagtii oo intaasoo milyan ahaayeen oo maktabadda ku dhex jiraan qaabka fudud oo daraad markaan videogu aan ku tusaya. marka maanta waxaan qaadanaynaa ayadoo baraatika ah. marka meeshan waxaa ku qoraysaa buugga adiga aad rabtid magaciisa. shardi ma ahan buugga markaas magaciisa ama magac markaas u dhow. مثلا buugga adiga iqtisaad aad rabtaa inaad ka hadashid ama maaragtay wax ka qortaa rabtaa, buug iqtisaad ku qoray kadib wax allaala wixii iqtisaad oo maktabadaas databasekeeda lagu shubay ayuu kuu soo bixinaa. buugga adiga aad raadinaysa buug ka fiican inaa heshida laga yaaba. tusaale ahaan hadda aniga waxaan raadinaa tandiim almaktabaat. waxaan raadinaa tandiim almaktabaat oo kale maadaama takhasuska iyo cilmiga maktabadaha uu yahay. tandiim almaktabaat, maktabadaha qaabka loo hagaajiyo
markaa ku qoro meeshaan kadib meeshaanaan click siinaa waxaan leeyahay marka mu'alif ahaan maa u rabaa qof oo alifay cinwaan ahaan maa u rabaa mawduuc ahaan maa u rabaa silsilo ahaan maa u rabaa mis bayaanaat nashri مثلا aniga waxaan leeyahay cinwaanaan leeyahay kadib meeshaan waxaa oo alkulli ay ku qoran tahay jaamacadda marka waxay calaaqa la leedahay maktabadooyin fara badan ay calaaqa la leedahay مثلا buugga adiga aad rabtid مثلا haddii aan ka waayo meeshaan maktabatu malik salmaan almarkaziya haddii aan ka waayo waxaa laga yaabaa qaybtan kale inaan ka helo qaybtan aan ka waayo qaybtan marka halahaan oo maktabado ay jaamacadda waxay la leedahay calaaqo ay la leedahay ama xiriir ay la leedahay marka midaan ayaan ku dhufanaa marka almaktaba almarkazi midaan maktabatu malik salmaan almarkaziya ayaan ku dhufanaa kadib waxaan leeyahay baxth ayaan leeyahay baxthi markaan ku dhufto kadib waa adiga buugga maktabadda ku jiro oo uu ka kooban yahay maaragtay intaasoo milyan oo buwaag oo maktabadda ay ku jiraan qaab hal buug a u soo saartid way adag tahay kadib marka wuxuu noo keenay aniga tandiim almaktabaat bisaan qoray wuxuu noo keenay tandiim khadamaat almaktabaat walmacluumaat waljawdati walhandara buuggi aniga aan raadinayo buug kasii fiican inaan ka helaaba laga yaabaa kow atandiim alqanuuni licalaaqati maktabat مفتش العام بالهيئات والرقابة الأخرى سيدو كلا مبادئ التخطيط والتنظيم في الإدارة والمكتبات مركا علمي مكتبتها مركا كسو شيكين إن مكتبة نمبر كأولها هدي حسوستان وإبر لباتن هدي دب أولها ونو إبر لباتن يالسيي وكان رقم تصنيف مركا في رسيد إبر لباتن وحالسيي العلوم المكتبات إبر لباتن لقب الله إلا إبر صدن لجسو جارو maktabadda markii wax lagu tasniifinayo ama buwaagta lagu rasaynayo waxaa laga bilaaba oo kaliya eber 20 eber 21 eber 23 ilaa laga soo gaaro eber 30 marka buugga hadda anaka aan raadinay numberkiisu waa imisa dib aan u laabano buugga hadda anaka aan raadinay waa eber 25 waa xuduudii markaas loogu talagalay in maktabadda lagu keediyo kama gudbin marka maktabadda meeqa buug ayaa ka yaala 4 xabo ayaa ka taasho 4 nusakh mutaaxa fi lmaktaba maktabadda maartay 4 buug ayaa ka taasho siyaasadaha maktabadaha ay adeegsadaan siyaasadaha maktabada aad ku adeegsadaan waxaa ka mid ah in buuggii مثلا 4 laga qoray 3 ka mid ah ayaa la maartay qaab waa la qaadan karaa laakiin hal ka mid ah mar walba uu yaala maktabadda maartay in markaas la akhriyo marka aan ku sii dhufto meesha uu yaalo marka مثلا maktabadda waxaa laga yaabaa 5 dabaq 6 dabaq 7 dabaq inay ka kooban tahay waa kana marka mujallad an-nasq waa 3 kitaab waaye waxayna maartay waxayna yaalaan rufuuf dowr khamis doorka shanaad ay yaalaan mowqica markaas maartay buugga uu ka yaalo marka eber 25.28 ayaa buuggan tandiim khadamaat almaktabaat walmacluumaat waljawhara eber 25.58 marka xuruufahan oo abjadiyada la raacsiiyey xa caynta waa xuruufo oo markaas u gaar ah oo ay kasoo bilaawdeen alif ba ta ay kasoo bilaawdeen waaye marka buugga xilliga la nashriyey maktabadda qaybta hoose oo fahrasada lagu baaro ayaa kombiyuutar yaalaan kombiyuutaradaas ayaad maaragtay ka dhex raadinaysaa kadib macluumaadkan oo eber 25.58 adigoo warqad ay ku qoran tahay ayaa meesha lagugu tilmaamay oo doorka shanaad ah aad tagaysaa kadib si tartiib ah ayaad ku soo helay waxaana imaanaysaa kadib maktabadda qaybta oo laga maartay kitaabka laga cariiqaato kitaabka hadii oo ku saamaxay marta wuxuu ku leeyahay kitaabkan waxaa loogu talagalay maktabadda ayaa loogu talagalay ama kutubada kale maartay mid kamid ah soo qaado asigaa ku dhahayo marka nusqatul maktaba iyo 3 kitaab nusqatul maktaba hal xabo waaye oo maartay maktabadda ayaa iska leh 3daana waa la cariisi karaa oo maartay waa la qaadan karaa ilaa iyo marka waxaa jiro qawaaniin oo markaas maktabadaha ay adeegsadaan ilaa iyo 3 bilood 2 bilood 3 bilood 2 bilood gudahood haddii kitaabkan aad ku keeni weysid maalin walba waxaa kugu socoto lacag oo markaas maktabadda ay dejiso مثلا maktabadda 3 riyaal oo kale ama haddii oo Soomaali ahaan aan u bedelno 15,000 ama 10,000 wixii markaas lacag nus door ku dhow ayaa maalintii kugu soconayso waqtigii loogu talagalay haddii aad ku keeni weyso marka waxaan sharxayna marka eber 20 oo culuumul maktabaadka ah ayaan sharaxnay marka cashirkeena maanta halahaas ayuu ku saabsan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh